daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Farshaxan. Wararkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan la isla dhex marayay waxaa ka mid ahaa kufsi fool bini'aadanimada ka baxsan oo ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolkaasi Mudug Soomaaliya. Haddaba maanta waxaan idin soo diyaariyay qormo ku saabsan ama barnaamijkan ka soo diyaariyay ciqaabaha kala duwan ee lagu ciqaabo kufsadaha adduunka wadamada kala duwan. maqaalkan oo aan ka soo xigtay bogga Facebook ku leeyahay saaxiibkay Subeer Haybe ayaa waxa kamid ah ciqaabo kala duwan in lagu ciqaabahaas oo ay ugu daran tahay ama ay ugu weyn tahay dil toogasho ama daldalaad ayna ugu yar tahay 3 ilaa 4 sano oo xariga. haddaba ku soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran. baryahan dambe waxaa soo badanayay kufsiyo fool xunxun oo lagula kacayay hablo yaryar oo qaarkood aanay qaangaaninba. waxaanay noqdeen tusbax duntii laga furay kadib markii raggii bilaabay waxba laga qaban waayay. haddaba maanta waxaynu eegi doonaa ciqaabaha kala duwan ee lagu ciqaabo dadka ku kaca kufsiga wadamada kala duwan ee dunida. China. wadanka China waxaa kufsiga lagu xukumaa dil toogasho ah ama xiniyaha ayaa laga jaraa. Sacuudiga waxaa lagu fuliyaa shareecada Islaamka dadka hortooda maalmo gudahood markii xukunkiisa la qaado. Mareykanka waxay leeyihiin laba nooc oo sharci ah, federal law iyo state law. haddii kufsigu hoos yimaado sharciga federal lawga waxaa kufsadaha lagu xukumaa dhowr sano ilaa 30 sano oo xabsi ah. Ruushka waxaa lagu xukumaa 3 sano oo xariga haddii dhaawac weyn gaadhay dhibanaha waxaa lagu xukumaa ilaa 20 sano oo xabsi ah. Masar ciqaabta kufsigu waa in xarig qoorta loo suro oo la daldalo. India waxay adkeeyeen ciqaabta kufsiga wixii ka dambeeyay 2013 markii sharciga kufsiga lidka ku ah la gudbiyay. waxay ku xukumeen 14 sano xariga. Faransiiska waxaa lagu ciqaabaa 15 sano xabsi ah haddii dhaawac halis ah uu gaadhay dhibanahana xabsi daayin. Iran waa la daldalaa inta xarig qoorta loo suro. Soomaalideena waa ay ku kala duwan yihiin meelaha qaarkood. tusaale ahaan meelaha qaar ayaa lagu fuliyaa shareecada Islaamka, meelaha qaar xeer qabiil, meelaha qaar sharci dawlad ay dejisay oo lagu dhaqmo, meelaha qaar waxaa dhacda aargoosi beesha dhibanaha inay dhib kale iyaguna geystaan, meelaha qaarna xeer jajab halka meelaha qaarna si hoose loo dhameysto.